كايري أنا ويا وحنكون أو هذا شقة سنة أفريقيا إماو هاي مركان ما ذي بوحان تصيب وحير أو مال أكشقي العدد امسى هاد العقد تاسي العقد أفرت كله $40,000 oo aad ka shaqaysay Mareykanka Cabdi Samed baa tusay waxaan ka shirkada ku jirtay xamar baa tagtay markaa may loobi shirkada xamar ka shaqaysaa waxaan ku yiri Cabdi Samed oo lacagtaan baa sanad kala wada shaqaysanay waa $40,000 haye uu soo wareegtay wuxuu yiri lacagta waa dhaxal haye uu ugu dacway waa $40,000 shaqaysatay haye عليكم ورحمة الله وبركاته قفكاسي واخ قمرلول قمر مقعد صدحة بسم الله السلام عليكم عدك كرو يرغاد بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وقمرلول قمر مادي قاري قبل أفرت المدر وعملي تيك تاك صادقتي ولالكي عبد السمد مادي قاري نور جاري اللي بعتبضا جيستي وحمك إيسو جوابي وإلى سو حريري قال الله السي عذركي بقر برمدو iyo wiilal qubaysa adeer sheekay ugu horeeyo iyo ma sha Allah tabaaraka Allah bacooka iyo faadmo macallin iyo fartuun ka bacdina waxa yimaad Cabdi Xakiin wuxuu ugu yeerin adeeray waa ku karanayaa gaari way soo diray aniga hooyo u imaanay uuna wareystay markuu i wareystay wuxuu ugu yeerin maxay dhibkan dabka intuu ka shidan yahay waxaan hooyaday sahar qeyr jecel weligay 20 sano nooleed wadanka aniga keenay ana abtiga xisxul balaa keenay عبد الحكيم وهو يعني دبي نوسو كرسي برفقة كحية مقدشان جي ما شاء الله تبارك الله على بورك وحنا قاضي أسد شي عبد الله وإن عذلك يا مدحتويد وندجي بيل الروس أنك يو ما كلتو ما نكروم يو مركز قصر ياس أسجل نولان منك هذا اللي يسارنا يمشي كذا مبن شيء كذا نوي كوين تاي أنا ما سلم صحيحنا يو أنا قلت مدحونا دران هاي إثيوبيا كسوجيرا وسير كأين الشدة hawrtiisaan ahay haddaan nin rabo oo xataa aan waashay wasiirka ay soo gadi lahaa laakiin walaalada waxay ii duugayeen maamada America waayelada lacag baa laga sameeyaa laakiin hooyaday maamada lacag laga sameeyo ma aha maama sahar qeyr jecel agoontii aruurisaa hooyaday African geeyay sokor ma qabto dhiikar ma qabto cholesterol ma qabto hadda social worker baa nagu socdo hooyaday waa alaboorka laga soo celiyay cimri u socotay waxaa la yiri wiilashaada ayaa ku soo ribood gareeyay gabadhaada ayaa ku abuse gareyso lacag yar oo maalkana ma sha Allah tabaaraka Allah ciyaalkayga aabahoodii ani aan shaqaysanay oo maalkana xagga ka shaqayso shirkadda Al-Furqaan Cabdiraxmaan Macallin iyo Shiini ahayaan ayuu walaalkay wixii waa dhaxal al-shabaab uu ii dhiibay wuu ii dilay xerta sheekha ayaa ii soo gurmadeen waa laga soo qaaday xalana la keenay Minnesota ku soo noqday gabadha Hana Abuukarna maartay wiilal ma sha Allah igu soo xirtay الله أيضا خير الله السيء قفك الله بالشيء مركب مادو أبشر مادي ديق مادي عبد السمد مادي كاهن مادي لإيمك لهرن لإيمك لهرن مد قاويو نك لكن قعدت إساري أشياء بيدي هو عبد السمد نبادر دبي لقصة الحيلة داعشة ولا عبد الوهاب أوكي هل كايجو عبد الوهاب وقلمه عبد الوهاب أذكر يا دلي أبها لا شيء ما أذكر هذا لكن نو دوي هاي أوكي كسر marka Cabdi Wahaab Dubai baa laga soo tarxiilay 20 sano ayuu deganaa waa la xiray waana ololeeyay ani madaxweyne dir hil shacab gabadhi ka amaan ahil shacab baan ku jiray madaxweyne dir hormood baan u ahaa dadkii Axmed Shiide ma taqaan la soo shaqeeyaan ahaa gabar talent leh gabar qurux badan gabar waxaan ahay garab weyday boqorad garab weydaan ahay walaaladay baa iduugay waxa social media maanta laga sheegay wax ay qabto ma aha okay halka ay joogo qamar hooyada waa sahar khayr jecel walaalada waa imisa walaaladay waa 5 okay kala sheeg ninka bahgoonida 30 sano Mareykanka ku habsaamay waa abshir maaday gaar organ buu degan yahay muxuu qabtaa Nike buu ka shaqeeyaa 30 sano Nike company-ga Nike kuwa kalena taraagay leeyahay imisa isku bahdiin laba wiil iyo gabar baa isku bahnahay marka yaa curadka ay soo kala weyntiin sheeg maaday gaari curadkii hooyaday ah haddana wuxuu ku maqaynaay kuri naagtiisu aaday markuu hooyo social worker-kii SSID ka xiray maxaa la dhahaayay ka xiray social markuu ka xiray SSID waxa soo dhan waxaan weydiin doonaa hooyo bacdama adigu aad gabadhii tahay hooyo oo waalida ay arintaas oo dhan noo sixi doontaa kaan waa curadkii hooyaday soo noqday anaga muddo 5 sano dab anaga dhashidnaa dabkaas waxa bilaabay Cabdi Samed aniga u yeeray guurkii baa ka xumaaday gabar abtigay oo dhalo ninka haday kula hadlayo ku dhahay maadow walaashiisa
ماذا المعبد الميدان هاي عبد السمد قبل مريكن هو كان المعبد الميدان هاي مرايا عبد الله أبو عبد الله كجوكتا عبد السمد الصاء راسي واتقانا ذكر الاسكو دري دمانتا كان لحنا قبصة way kala tageen hadda wuxuu kugu sheekay daykeer bay leedahay oo business bay lahayd daykeer iska dab ayadoo sanad joogin gabar dhul bahanta fartuun xuseen waa la yaqaan asan kalaam ayaa ka xeesay shelter bay ku furatay gabadhii saddex bay u dhashay way kala tageen عبد السمد gabadhina ay kula urabay marka hooyay عبد السمد saaxiibaan ahayd عبد الحكيم been lama sheego عبد السمد Wisconsin أنا جاي شقدها ويغيرها ما هي صوكب هوشة صوكب عبد السمد وانجع أنا وحكوي أفريقيا عبد السمد وويل كان عاوي عدك كنتو بي حالي ما يوانك كان تيك تاك دعوة أو ورالكا ويغيري هاي وكايري حسن وكايري أنا ويرا وحكوي أو هذا شقة سنة أفريقيا إماو مركا ما ذي باوحان تصي وحير أو مال أكشقي العدد إمسى هالعك تاسي العك أفرت كله أفرت كونه $1 أو أتكشق اسم مريكنكا عبد السمد ده تصي شركة كجرتي حمر باتك تمركا ماي لوبي شركة حمر كشقة صح وحنقول عبد السمد هذول العكتام سنة كانوا ولا شقة سنة وأفرت كونه $1 هاي وبسوور التي وحيد العكت وأنا حل هاي ويقول دعوي وأفرتك كونه شقة ستة هاي محكمة الدي هاي العكت ولا يحكمي هاي إن عن الله هاي محكمة حاجة كده عاد حمر كده عاد هاي العكت أنا وحنكحه ولي مستقبل نقال إلى هدوء فديها هاي أحمد نقال يس أو كويا على كرمان يس أحمد نقال عكت أنك قصة بحمر الأساعي صدري هاي هذه من خاتمة كإهد هاي على أي كل حال منك الشركة دا إسكالة وحوير فيديو وقنبا يالو العكت كمسينا يو هاي محكمتك كلا بحا هاي وان كلا بحني هاي أنت وحان عبد الحكيم كاغا شيغا يا غير معلي إبراهيم ويمقليا هاي بقولك برنامج من كجرا باي باي هذا لا اوكي ما لسه انا بصوعي هاي ايوه لعبت عبد السمد ركاتو عجلت بسوق وريغيسي جامع سعيد محمد عيال كيغا ابهود كلبتها مر هره يو كقبتي هاي haduu ka qabtay ani waxa ku yiri jaamaco inta qori la horta inta meel kale u gudbin maxkamadda xamar bay ka dhacday maxkamadii way dhacday lacagtiina way ku guuleystay هاي markii la ii fulintii la ii qori rabay ayuu racfaan qaatay racfaan buu qaatay هاي yaa racfaan ka qaatay oo kula dhashay هاي markuu racfaan ka qaatay markaas oo markuu shabaabkii dhiibayo shabaabku ku dhiibay هاي waataan meesha ay soo badbaadisay soo baxay inta markaan imaaday maado deeqo oo neersan oo si fiican wax u barnay ninkii weynaa ku habsaamay organ neekida ka shaqeynaya team bay noqdeen social worker lawyer la qabsaday codku taada ku dhageysinay yoo dhageystay habeen barba waa kana hooyadii anagoo isku jiifna nin social worker wuxuu ugu yiri marka kiimiya ku jooga kiimiya xisaax baalmiya ha awr qeyr roble hoosan dajiya anigu guriga u kareey ciyaar yaraan haysta wadanka wax badan ku koray marka aad il iga badan yahay ayaan maamada shaqaan bilaabay hoosan guriga u kareey walaaladii hal qof ay caawiye malaha cabdixakiin maamada sagaal agoon ayaan hargeysa iyo muqdisho ugu hayaa sagaal agoona waa wareysan doonaa hooy waa u imaan doonaa haye maadow bayna la dhasheen reer xulbaalo waay ma aha reerka aabahey haye hooyaday agoontii way qalin jabiyeen 20 jiro waayo hooyaday ayadaa sheegan doonto haddaan abuse gareeyay ninkii social workerka waxaan ku yidhi hooyaday maxaa ka rabtaa waxaa soo report gareeyuu dhahay ilma maadee inaad hooyadaa bahdisho inaad abuse gareyso inaad ku shaqaysato waa yeelka lagu shaqaystaa laakiin maamada maamul lagu shaqaysa ma aha maasha allah cibaada ka muuqata DC intay tagtay reerkeeda madaxweyne dir u soo dhicisay xaqeeda haye waa maamo Soomaali oo leey ka soo shaqeynaysa maasha allah waa maamo quraanka Abu Bakar Sidiq una meesay maasha allah ma aha maamo ma taqaanaaye jib maamada ana u soo noqon doona soco ana dulanka laga galay waxa iga dhaqay dulanka marka ilma diray afar ilma dir markaan dhahay waxa ii soo gurmaday boqol gurmado shirki direed arsaba ka dhacay ayaan maamulay reerka dir way ugu kuulanayeen reerkan ka dhashayna dhulka igu dareen boqol gurmado 10,000 ii soo diray boqol gurmado waa $10,000 ku siiyay marka ma wuxuu ku siiyay markii aad fiidiyowga duubtay markaad ooyday fiidiyowga ka saar ana ceebeenin anaga dir hadaan nahay gabdhaha waa ku faanaa gabadhii labaad ee la qaawinay waa tusmo gabadhii koowaad waa
tusmo kii labaadna waa adiga adeerow macaanow anaa cabdisamed ma iyo nimanka madaxweyne diray gurra ana isma qabtaan anaa kaa celine 10 ka qaado 10 kun xawlaada nugaal uu soo dhigay axmed nugaal ilaa hadda kama qaadan haye wiilasha qubayskana shir bay qabteen haye shirka waxa ka soo qayb galay hibe cooko haye oo ina adeertay marna dubaashiday haye fartuun macali ibraahim waxa way dhageysanayaan haye reerka shirkadda iyo reerka almaha u dhalay waa reer nasaba laakiin wala caruurtii aad u dhashay salamaan cabdallo okay waa reer goba reer la heli karo ma aha way ii soo gurmadeen gartii gogashii baa la dhigay waxaa la yiri walaalada oo tiim ah baa lacagta kugu haysto ani lacagtii in aniga lay waan cadeeyay waa 40 kun aad shaqaysatay qubayski way tashteen waxay dhaheen gabadhan madaxweyne dir adeerkay maxamed dhabbaro mareykan joogo odayga boorashka wareejiye soomane waa abtigay wuxuu iga qaban waayey ciddii qubaysna way tashteen waxay ii keeneen 10 kun weli adeer sheekay iyo gacma maxamed gacma dheere 10 kun bay ii keeneen horta dirta igu wada daweyn laakiin qubays iyo isaaq special habar jecel boqorkeena waan salaamayaa 20 ay ii keeneen laakiin wixii oo dhan isku fuuqsaday reerka jaamac siyaad ee dhul bahanto boqortooyada sandala idin taagan cimaamadiina lama qaadan karo 60kii 40kii iyo faa'iidadiiba cabdixakiin wuxuu yiri walaalay macaanee gabar yar oo reerkeedu dayaceen oo reerkeedu soo gurmo waayeen oo walaalkeed qaawiyay aniga ma garanaysaa gar u dhigee lacagtii anaa ku siinayo saasa igu qasabtay inaan soo fadhiisto halkan lacagta cabdixakiina isiiyey aniga saacadan laga bilaabo waan ka baxay cidii dir aheyd kama bixi kartid okay markii xamar lagugu dilay ma ila wadaagi kartaa waxyaal dhaawacyada lagu geystay waxa fadhiyay ugaaskeena beesha gurro madaxweynaha way kala baxaan ugaas ibraahim muqdisho jooga abtiga Cusmaan yare Kanada ka imaaday nimankan tolka jilib baa loo kala baxaa dhulbaasi oo kala baxaan bay madaxweynaha u kala baxaan jilibka aniga ka dhashay oo walaalkay hormuud ka yahay oo 8 ayaa hotelka soo galeen haye hotelka buu ahaa muqdisho suxufi ka soo horjeeda CID da lambar 4 adeerkay dhaga badan lagu dilay على كل حال أنا عبد السمد بابا عنكو صاري أمريكان أدو هيستي نن متعلمة وحبرتوها على إن منك وابا شباب وعبد الوهاب أو صوت الحلاب وين وإيه يرين وحيدين عبد السمد بانكا قبلنا صباح وقاس وحاكو إن منك ما آمنة يو نقول أوتك أبتي حكومية ليان إيريادنا وحول السيسي كاميرا بدن باكو حرام إيريادو مركا والكي والنمبر أفر CID دا هوتيل صحفي أو دقا بدن اللي قد لي waataa dalbatay fiidiyoogii lagu garaacay waatii lagu soo diray tii lagu dhaawacayna waataa ku tusay cabdisamed dharbaaxada u horeysa waxay ugu dhuftay ninkii shabaabka ahaa ee daacishka ahaa cabdiwahaab dharbaaxada labaad waxay ugu dhuftay walaalkii cabdisamed 8 kale ajnabi ay ahayd cabdixakiin xijaabka aligu jeexjeexay ku naaska ay qabto ku dabada ay qabto ku tibaha ay jiido qamalay halkaas ii joog ma soo saar kartaa telefoonkaaga okay fiidiyooga daarsa markii lagu geystay dhaawac markii dhaawac la geystay walaalkay warqadu soo sameystay wuxuu yiri walaashay way waalan tahay waxaan ka keenay Mareykanka ka soo dhuumatay lacag la luusho bixiyay war waxaan ilma waali gabar waxaan ahay okay number 1 fiidooga koowaad okay waa ka dilkii qamar loo geystay baan idin la wadaaga codka ma daari kartaa okay aniga oo talkaygu cabanaya isbitaalka kalkaal ayaa la igay wiil habar gidira ayaa igay habar gidira ayaan habar gidir baa caawsay habar gidir ha noolaato wiilish lambar 4 ka shaqeynayay okay waxaan ku tilmaamo aanan garanaynin daawud inay dhahaan iyo mid dulloodayso magacayla wadaago cabsimin maadee gaareedhan mucjisaha ku dhacdo cabdiwahaab gacantayga ay u dhuftay madaxa dhibaato badan ay geysteen markaa isbitaalka joogay jugtaas ay gaadhay dhibaatadaada waxay ugu sameyn waayay waxaa yeelana ma aqaano beliis gorno waxaan u baahanahay baabeen meel laga saaro aniga dacwaanahay okay next video garabaan u baahanahay maray aflagaadayaan maray caayaan maray faaxishay ugu tilmaamaan 4 3 saariyaan maray sharafteed jid ku jiidaan
dhibaatadaasay gaasiya madaxa dhaawacay iyo dhegta way dilaacday gacanta way jaban tahay liis waxaan u baahan caawin okay fiidoogaas waa fiidoo koowaad ka labaad niida Soomaaliyeey barnaamij labaad baa dhici doona insha Allah laakiin kana dhameeyna waa kana ninka asagoo idhahayo naya hooyaday madaxtooyada ayaa la joogtaa nin xaraana waad ku haysataa lacagtaadiina waan ka qaadi doonaa shabaabna waan kuu dhiibi marka aniga ciyaar waa qoraal miya ma ciyaar amaleenay waa ka duuba waa cod miya waa kana ninka sug هو بس ما ينبعث لها اوكي وابتغي ويلها يهدون ابت انا قاعد حلينا وابتغي هويدا لا دشاي سهر جعل ولكن ها واس بران حلباله وايو اوكي ابت هدوبن اوكي مريكان كو كيماداي وكان أنا مكديك اللي يشبه ويلش اللي يشبه وأكوانا. ديك اللي وش. سك. اوكي عمرك ديك اللي وش بيه؟ ها ديك اللي يشبه. ويلش ديك وش بيه هاي؟ أسد شيخ عبد الله. أو سجى. أسد شيخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دل يدبل وعد السلام أحسبشر غير مقدس شو عطري ما أنت ديجان اللي أنت بيشر. إيجي. Soomaaliya dulmigu halkaas u gaarsiisan yahay okay ma daarno wiilasha ha inta galabtaas wiilasha dhiiga ii shubaya waa wiilal tolkayga waa wiilal madaxtooyada sheefka madaxweynaha Asad Sheekh Cabdullaahi oo kaasa marka aniga waxay hisay ma Cabdi Xakiin wuxuu haystaa okay yaa ku dilay oo gacanta u horeysa ugu dhufta walaalka Cabseen ma deegaare Cabseen hadda halkeedu joogaa Mareykan ku jooga gobolkeedu degan yahay سنكلادو دقيقة لكن international travel واي. وتراك بوطا. ناكتي سحاسكي مدو فري وحيد وقتها نايكرو مدو هذا قبنا قبل قبيس وقبا وحيد وقتها مقدشو بلاكسي دقنتها. بلاكسي دقنتها. أوكي وأكوسو نقندونا قمر. ومدى الصوماليات وعرب إن هذا بيد لو داقو هويو سهرو خير جعل. هويو سهر خير جعل وأتعلق أفضل وقمر هو يديد هو سهرة خير جعل معها هو مسك حنوصا معها هو يعني عن عبادي وهو يدا النور كي شرفت يعزه كم مقدار هو قيمها أي لا ضحينا واتقرن كرتان لما أنتي واتقرن كرتان وانا دريمي كرتان والدريمي كرتان لما أنتي هو قيمها أي لا ضحي هوينا ويل كيدا بينك مشي كيس كان وصوب بعدنا مدة أنو كجرني دتك الدبلها كقيلية هي دتك السوشيال ميديا كقيلية وحيو لأن حقيقة أبتع سكوف صنصة هوي سهر خير تعالوا السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوكي هوي أضع قمر دارك ويلاش هذا نوعي مسا ولا بوي مركا قمر يويلشا واحد احمري بان ربنا إلى الشعب الصوماليين اللو ذاك horta wiilashan gabadhan si gaar ahaan u dhaay u eeganayeen oo maaragtay ma ballan rababa haya wax anigana iiroon oo i wadwado oo feeri indhahaas labada indhood way xanuuneen dhulkii baan arki waayay way ila carartay waxay geesay mayow kaneeni istaalka haya waa la qalay haya wiilashaydina waxay aadeen Kenya markii saaka aniga ii qaaday mayow kaneeni waxay u baxeen Kenya haya markii cusbitaalka lagu geeyay ayay wiilashaad iska dhoofeen saakay baxeen iyadana waxay ii geesay mayow kaneeni mayow kaneeni ma ku geesay haya alxamdulillah indhihii waa la qalay waan ku guulabeenkii waa la habeenkii baan ku hoyanay subaxina waa la qalay adii 3 cisho ma 4 cisho amal baan joognay alxamdulillah indhihina waan ku guuleysanay ma sha Allah ilaahay baa ii nimcay markii hore zam bay yidheen haya indhaha zam ku yiri haya
waan ka fiilay qalayna ilaahay baa nuurkooda ii soo celiyay ما شاء الله waan iska joognay waan iska soo noqonnay waan iska imaanay halkan ayagoo iga tagay wiilkuna kala yarna wuu guursanayay kan weynna reerkiisu aaday midna guur buu guursanaya kii weynaaba reerkiisooda waa kaa tageen labada wiil waaba iga tageen haye alxamdulilah ilaahay baa ii niceeyey haye habeenkii markii la gaadhay salaatuliil baan u kacay haye waa kusoo wacaya bay haye salaad baan u kacay habeenkii markii la gaaray adigoo xanuunsanaya labada wiil iska tageen way iska baxeen okay habeenkii markii la gaadhay oo ayaan dhaqamareeyay kaali gacantay qaba xoogaa dhulka ma arki kare isqoshii idiisay waan soo weysaystay waan soo noqday dhankii qalbada ii jeedisay waan tukaday salaadii markaan ka baxay ilaahay baan gacmaha u taagtay ilaahayow adigun baa ugu indhaha isiiyey ilaahayow gacantad ha imudin lixdayda lixaad ilaahay iga kala dhantaalin ilaahay baan baryay ilaahay baan gacmaha u taagtay waagi hadduu ii baryay markii hore zambaydeen waxba ma arkeen meeshii salligii aan fadhiyaan ku seexday ku jiifaday waan jiifay salaadii arooreed markii la gaadhay baan soo booday waa indhahayga waaba sidoodii maasha allah okay sidoodii bay ii yihiin salaadii baan iska tukaday subaxiina waan ima tagay istaalkii jag baan maray adi calaa kulli xaal waan soo galbanay waan iska joognay guriganagaan imaanay cid maxaad noqotay iyo maxaad itiri midna ma jirto iyo xamar bay iska midna xamar buu aaday midka kalena reerkiisuu tagay Nairobi adigoo xanuunsanaya kaa tageen saakan waxa la ii qaaday mayo kaniin way ayaguna ka degeen Kenya ka tageen haye alxamdulilah waa la soo qalay waan iska fiicnaaday waan nimceystay indhiina way ii baxeen waan iska joognay saan u joognay guriga waan isaga noqonnay meesha nadeen iska joognay wiilashii anu balaayo wax ku dhacay ma aqaane waan joognay adi kolkaan joogno bilooyin joogo way soo laabteen taraagooday qaateen wiilashii imtixaan baa ku dhacay haye imtixaankan waa wax min allahi rabbaayad ilaahay inuu shaqaga rabbi ka imaadaan u male dee dadku ma taqaan ilmo aad dhashay oo adig kaa daba shaqayn dhibkeeda ay leedahay waa li dacweyn SSID waa liga gooyey wax walba waa liga xidhay tan unbaa inaga ila rafaadaysuno i heesay SSID waa lagaa xidhay waa liga xidhay iyagaana ku dacweeyey warkan way wixii yarta kolkay wacdaba waxa la leeyahay ilmahaagaa kaa xidhay haye marka waxay ku idinku dacweeyeen siday ii sheegtay qamar waxay dhaheen maamada oo Soomaaliya aadaa qaadatay qamar soo saas maahay abuse okay elder abuse okay damba maxaa la keenay way waaranta maamada ninba maalin kasta uu ag taagan oo gaal kiimiya suguma abuse garayso qof la abuse garayaan kuula eka may ma qof la abuse garay ma kuula eka waana gabadhaadi kiimiyo way ag taaganta okay markii uu yiri gabadhan ka baxdo gabadhan waa tii ku abuse gareenaysay waa tii maaragtay ku dhigtay ka bax xageed ku aragtaan ayadoo dhiga ama abuse gareen horta qof la abuse garay kuula eka yani allen dadka waxa la eega noloshiisa suu u egyahay ala fiiriya haddii la abuse gareen maxaan kuula eka mayba inay baxdaa markii dambe waxaan u yeedhay community ugu yarabta laba nin Faysal iyo duqo kale way imaadeen Faysalka community Sankalar community okay way imaadeen maxaa laga soo dhaadhiciyay way waalanta Faysal baa laga soo dhaadhiciyay gaaladii haye ninkii gaalka haye markaa uu leeyahay wuxuu leeyahay markuu weydiin lacagti waraysan lacag soo tirin waa afku inta iyo inta maxaa laga waa inta maxay ta waa ka jawaabi labaatan halo waxa ku timi gaaladii wuu fadhiyayba Faysal waa fadhiyaa haway fadhiyaa dadku waa fadhiyaa haye haye wuxuu yiri labaatan hadii shan lagu way meeqa hari حسابك ويدينا يا لعكتي وواحد ينادي كسر دارعين ما مضوا يوارنته
والله تاي معنا والله تاي سو لبدي marka waxay yiraahdeen hadii 25 la gooyo maxaa haray shan la gooyo maxaa haray haye waxaa haray baan 20 hadii shan laga gooyo 15 baa haray ma sha Allah haye haye adi balaayo xisaab lacag balaayo soo guri wixii dhan ka jawaab su'aalahaas lagu weydiinayo way waalan tahay dib u doo socdaa cabdisamad way waaranta lagu daba socdaa Dayman Lul gabadha la dhaho walaalay waa ku Dayman Lul Maxamed please haddaadan rabin inaan ku balogareeyo hooyo Soomaaliyeed oo dib loo geystay oo ayeeyo hooyada kala hadlaysa shame on you baan ku leeyahay kana bax walkayga please haye su'aalihii la weydiiyay waxa kamid ahayd lacagta hadii 20 la gooyo maxaa soo haraya waxayna ka soo dhaadhiceen inaad waaran tahay inaan waalla okay ku soco lacagtii waan ka jawaabay wuu sii dhaafay markii buu kimi bax adiga ya kimi ku abusgareysaa buu haye say abusgareen baan waxaan ku noolay bawaayade haye ayada ay wado meel kasta igeeso dhakhtar igeeso hatta indhaha kulkii ii qalay 3 jeer bay igu xilismay oo kaniini indhaha wax dad oo idaba dhaqaaqa ma arag wiilashaydiina anigoo saaka ii qaaday mayu kaniiba iyaguna baxeen ayada moogi dadba ma hayaan wuxuu yidhi ha baxdo oo maxay ku bixi kii social worker ka baa yiri kiimiya ha baxdo haye maxay ku bixi baan haye nabal wuxuu sheegay aan aragnay iska baxbaan bal wuxuu aragnay aan sheegay aan aragnay haye faysal baa hadlay faysal baa okay su hooyo hay dhamayso haye faysal baa hadlay faysal Somali community sankalo wiilka dhul bahante Maxamed Maxamuud okay haye sanoo gurmaday okay haye maxaa loo bixin maxay haleysay gabadhan haye gabadhan waa naftaydan haye wax ilmahayga aan ka hayo waa 4 ayada bis aan hayaabaan qofka istaaligeyn waa ayada qofka ay khidmeen waa ayada qofka ay og waa ayada 4tii ayada bis aan ka heestaa baan yani waa kiimiyo kiimiyo ma ka heestaa marka niyo adi maalinkaas horta adi waxaad batahaan wax aan la yaabo inaadan ii imaanin mar dambe wadi kor taagantahay maalinkaas waa kii cadaanka ahaa ay ka soo dacweeyeen ima soo wacdido ballan ila ma samaysan maaragtay inta dadka iskama imaado qof roori oo guriga ku soo gali maxaa waayaan horta ko maalinta horta ii imaaday soo ay kor taagan baan arkay anoo iska jiif haddaan fi naxdin waan ka naxay maxaa baan who's this I'm team team kaaga alla gubiyay baa ma ballan baad ila leedahay isagoon ballan kula lahayn buu iska yimi undercover okay halkii hay gareesta waa ka wadi kor taagan yahay hataan abdi ay soo diray abdi baa soo diray muxuu abdi ku soo diray sababta ku soo diray maxaa waa abdi aniga markuu adiga ku soo diray أنا ميو إسوابا أنا مو إله الله سمعت أني كوسو دير محي أنا مركي دم لو ودي منك هالكاس وقد حد المالي كسمو تاجين تلا بالله لما صبيان هيو وحنا نيو وان كنت أوين بجيبي كار نيجي عدان كهوة كتير إن بالله لما سمي سنة يصير يمسوا وعيسير أدور روري مدلق يسولة دب بدي قول هسا دب دم بهاي إيمان وادسكجوبني الحمد لله dhibaatadaas ay ugu hayeen iima imaadaan ma soo booqdaan xataa telefoon baan haystaa lima soo waco waxaaba la yidhi telefoonka ma qabato telefonkaygu waa ma qabato waxaa la yidhi hooyaday ikhtiyaar male hooyaday dad lama hadli karto way waalan tahay كمية أبوس كريس أبوس كم دبقة وريا قفل أبوس كري أنا مقولة كاي هرت ورنيو أدا والان أنا ما والله أيها كن قارة دوري سوا سعو أديك أنا والان أيها كن والان أنا ما والله إلهي ما والله إلهي واحد أقبل إنه إلهي يكوار ولي ورسيها بارك إياك بس هبارت هاي كوي قال بها قال محمد بارك هو يجوا هباري ندعي هاي maxaan dhahaa de waa cil baa qabtay qof aan waale oo weelan yilay maxaan sameeyna cil baa iga keenay de hooyan hoo alooshan kuma sii qaban ya hooyada meel baa go'an sawma
calooshana kuma sii qaban هوين قمر بليز قمر ستوب كراي marka xaqayga gudato ها alxamdulilaahi lawadyay xamar habeenkan ka soo bixinay dhumashaan kusoo baxnay الحمر كسب حسي carab هاي gabadha waa galabtii la dilay ayadoo dhiig ka daadan oo gafkoo dhan dhiig ka qulquli ayay ii imaaday وقمر قمر يلا الدلي اوكي isbitaal baa loola cararay waa lasoo daaweeyey isla markiiba waan cararnay ها waa iska soconay le dhul jahoon baan isaga soconay saan u soconay reer baan u tagnay reerkii baan gurina siiyey waan barinay subaxiina waan kasoo dhaqaajinay wiilkan caruurta dhalay gabadha ayaan habeenkii wacay jaamacow hee waana la dili kow meel aan galaan la'na caawa waa inaad meel alla meelood gasho tigid goosaa oo caawa berri aroortii marka indhaha sidan u furo istigidkina la aalaado anda ka barahan isla markiiba tigid buu noo soo diray waan soo baxnay waan iska imaanay waan iska joognay ilaa adiga shoog un baan ku joognay ilaa al'aana shoog un baan ku joognay guriganaga intaan barinay yara gurigiiba waxaan ka qaadnay baranooy waan ka cararaynaa marka alxamdulilaahi dadkan dad quman bay ahaa jireen ilmo qumban baan korsan jiray weliganna qayli nagama soo yeedhin weliganna bil baa dhalatay iyo bil baa dhacday sugmanaan imaanin ilmo quman oo reer dhaqan oo dhibaateysan manaan ahayn iyaguna way shaqaysan jireen gabadhan way shaqaysan jirtay anaa isasaaydaydaan iska qaadan jiray tanya tu kale oo yar baa jirto waa iska nimceesneen reer qabow baan ahayd maxaa dhibaatadan keenay hooyo sahro meelay dhibaatadan ka imaaday ana ilaa hadda shaag baan ka qaaday اوكي هooyo sahro ilaahay khayr ku siiyo sababtii kiiskeen anaa ku jiray markaan kiiskiina ku jiray nin baa isoo wacay walaalkaa dhalay oo gaari uber aad arkayso codkaa ka duubay xalay cod kale oo yaab lena aan ka duubay ood wada dhagaysanayso Soomaalida aan la wadaagi doono wiilka walaalka baa dhalay walaalkay cabdi xulbaalaan dhalay anna sahro xulbaalaan waxa uu cadeeyay uu yiri eedaday maanan aflagaadaynin miyuu ku aflagaaday ama waxan jawaab kugu yiri aniga wuxuu yiri eedaday wuxuu yiri waxa abuus gareeso qamar lacag ku shaqaysataa bal aniga lacagtan ku shaqayn company maan ah oo lagu shaqaysan okay halkaas yara qaba Soomaaliyay waxa dhacday markii aan wareysanayay wiilka ay eedada u tahay codka ka duubay waan idin wadaagi doonaa eraya cajiib ah oo dadka Soomaaliyeed ay aad ula yaabi doonaan su'aalaan weydiiyay waxa uu yiri gabadha waa gabadhan qamar magaceeda kale sharciga uu yahay kiimiya uu yahay wuxuu yiri islaantii bay ka haysatay oo waxay ka kaxaysay gurigay deganay oo waxay rabtaa buu yiri inay ku shaqaysato hadalka Soomaaliyeed hadal aan anigu iska iri maaha waan duubay codkiisa waana idin la wadaagaya waxa yiri oo warshadba maxay kaga shaqaysanaysaa $900 oo SI ay qaadataa waad dareemi kartaan hooyo Soomaaliyeed oo public house ama guri degan oo inta gabadheedu u timi ay ka haysatay waa gabar ducaysan waalidka Soomaaliyeed ee public house-nada degan waad garan kartaa $900 arsaaqad ma aha $900 hooyo sahro khayr jecel waxay ka masruuftaa agoon iyo cid walba waalid $900 SI qaata dadku masruuf waad garan kartaa waxaan ku yiri walaalow waa maxay 900 aad leedahay gabadhu way ku shaqaysataa wiilashu soo taraagimo wataan maxay $900 ee hooyada ay ka gureynayaan uu ka bood taas waxa idinku daari doonaa waraysiga dambe ee aan ka duubay isaga hooyo sahra in gabadhaadu ku kaxayso oo gabadhaada aad la noolaatid habi baad ku hayso maaha ani habi baan ku meel kale weligay ma bariyin ayadaa baan la nool waxaan la noolahay 900 ma anaa ku noolaan mise agoon baan ku beeli agoonta ayadaa iyo beesho kirada ayadaa iga bixiso ayadii wiilka ilmaha dhalay iyo ayadaa iga bixiyo guriga kiradiisa waa $1,000 ayaga iga bixiyo aniga sagaalkayga xataa ilmaha agoontan wax uga diraa wixii kalena anaa iska beesho inamadu bacdama ay taraagay wataan gaariga taraaga intuu sameeyo waa la yaqaanaa ma kugu caawiyeen wax waalidnimo ah $1 iguma sheegtaan $1 iguma sheegtaan
سجال بلود بنحمر فدي كستا أنت أساس أيدينا وان كتاجي $1 يقوم شيكتان waa maxay waxaan ay leeyihiin way ka haysatay oo guriga bay ka rabto way ku shaqaysanaysaa maxaa laga shaqaysan waa beentood been iyo warbay sheegayaan maxaa qolkii lagu shaqaysan ma company baan ah maxaa laga shaqaysan sali igu shaqaysan aniga been iyo warbay sheegayaan wiilkaad eedada u tahay erayadu ku yiri maxaa kamid ahaa aflagaadada ay walaalka dhalay ee caawa aniga iskaga kay dhigayay nin baariya inta ay ku shaqaysataa ko inta ay kurios bay u wadaa oo maaragtay meel bay geeno xamar bay geeno maxay bay ka rido oo way ku shaqaysataa ani ma company baan ahay ku shaqaysan hal igaga shaqaysan way sixirtaa dan way sixirey waa la sixir wuu yiri ana ka duubay codkaas sixir bay ku sameeysaa أنا إلهي سحر ما تسمع قصة حمر ولا أك إلهي ما تصبح وشيء أسجع ما أنا هبارة هي أسجع وطلع وحوش أنا أعود ما هي سان واحد أو يكون في القعدين ويلك أيده طيب ولا تقدر وحوي بيلا ولا أجي كرتاه وحوي رشاش سكورتك أنت حيرين بعد قاعدة أفريقيا ويلك أيده واحد بكويري أيده ما يري ويلك أيده واحد أرجعس ويري أود وأكوسي راعنا SSI dadka shaqeeyo ayay lacag raacda oo shaqeystay kambaniyaha ka okay qof isay qaadan sudaftu intuu kalka intuu qaatal maartay lacagtiisa Afrika loola aadi ma jirtaba sharciba ma siinin kistayar marka ma wuxuu ku yiri waan ku dacweynayaa waa wiilkii walaalka dhalay wuxuu ku yiri waan ku dacweynayaa oo dawladdan ku sheegay inaad qaadato lacagta lacagta asaga ma sheegay ani ma igu okay qamar anaa wuxuu ku yiri intuu soo wacay eedo gabadhan inay ku shaqaysato ilmaha ka goosay ku sixirtay lawyer baan u qabanay wiilashaadii waa la xiri kiimiyo adigana social security magacaaga ku qaadataa farta qaad qorbay ku tirhooyo marka la wadaagi kartaa codka wiilka ay dadu tahay walaalkeed dhalay okay waxa wada cadayn baad iga taqaanaan Soomaaliyeed waa la yiri anigu mar horan ka tagay codkii aan isaga ka duubayna waan idin daari doonaa okay isaga tii aan ka duubay barnaamijka labaad baan ku sameeynayaa kii xalay aan ka duubay kan caaw ka duubay barnaamijka labaad ayaan ku sameeynayaa laakiin markii waa wiilkii eedada u ahay inta ii daarmay telefoonku eedo Sara wiilkaasi marka uu soo ku yiri waa dacweynaya lacagta waxaad qaadataa social security walaalka kula dhashaa dhalay abdi xakay wuxuu kaloo yiri Cabdi Samed gurigiisa habeen barkii marka anaga xamar tagnay gabadhu guursaday markuu guursanay hooyo qalnin bay ku jirtay waxa lagu qalamay oo klinik muqdisho markaan tagnay gabadha Cabdi Samed iyo hooyo xariir ma lahayn waatana kuleed wuu igooyay gabadhii baan u tagno soo salaamay gabar boqorada oo wadaada oo qurux badan oo maasha Allah qubaysa waxay tir hotel kuma degeysaan hooyo sariirtii uga degtay maamadii bay u qubaysay relationship baa soo noqday 5 bilood aan la deganeen yaa la deganeen 5 bilood gabadha Cabdi Samed oo qabo walaalkay oo dumaashada haye markuu imaado cagaha soo dhigtay dhagto dhig iyo daray wuxuu yiri naagta maxaa guriga keenay isagii baa ku dilay Mareykan markuu ka yimi Mareykan ka imaaday gurigayga maxaa naagtan keenay waa dumaashada hooyana way joogtay Sahro arintaas ma dhacday oo ma sameeyay wiilkaagu way dhacday haye gabadhii wuxuu yiri gabadhan wiilka ma joogayso haddana waa habeen oo waa galab oo markaan aqrintukan ka bacdi markii uu yiri hayga baxdo ma arki kare oo Cabdi Samed ma waala saacan intay u bixiyaan say u bixaysaa way bixi wiil ma arki karo gurigan ma joogi karto oo qaad haday baxdo aad bixiso ana ma ku joogi ana qabar waan israacina ma kala hadno sidan on baan nari wuxuu yiri qamar ka tagtay guriga ka tagtay oo gacan saaray banaanku ku saari daro markan waa guriga dhaxdiisa haye markii baan nari qamar hadaa bixiso saacan qofkii la bixiyo ma waraaba loo bixiya وساعي بالك لقى سوهيان هيه أدي بحد أنا كما هرهيان وراونا وضعنا موجود كما هرهي ونفتي واحد قبل ما جفت أنت أسمع في اليوم وحلالي وش يقطع قبل الإسلامية
waxay karsan la cunaa laakiin adigu waa gabadha aad sadaqada u tahay qasadaha waa isagu uu qabo asaw qab waxay karsan la cunaa sasay ii waday khayr Allah siiye waan u duceeyay gabadha wiilku qabo waad u ducaysay waan u duceeyay iyadaana ku dhaqaaleynaysa aan ku siibtay kolkaan saa on saga fadhiyo saa u jiifado inday soo qaada kareen lugay ii riixi gabadh baariyada waa oo wadaad taas horta waan u duceeyay ما شاء الله hadduu ilaahay nasiibkiisa ka dhigo ilaahay dhaqanida abti waa kana اوكي ninkii ay walaalkeed u dhalay asagoo isoo wacay xalay codkana aan ka duubay caawana aan codka ka duubay Soomaali weynay dhageysta barnaamijka labaad baan idinku diyaarin doonaa asagoo maamad u hanjabayo clipta ana ka qabtay isagoo maamad u hanjabaya maado wuxuu Okay. ku exercise qaadata hooyo anoo cad fadhiyo eeda may maqashaa idhageysada aniga SSI haddaan qaato xoolo dad kuma xadgudbin xoolo ma dhicin maya idhageysaan أنا عايزة كده وريان أنا عايزة أنا بكون دعوان ده أنا بكون دعوان ده أنا إن كانت الواسع حرمتها الوالد والسحر كم بالورد إن كانت ده أنا كلي قابا ما إن كوي عند الله دم كل والد والسحر هذا ما حدني بتقول أنا ما حد يخبط أقول سقجانيو أمر حديبة أيها أدوك ولا يلقى يشدكين يسوع وتكمل كيف قبل كذا ياخذ قمر كم مشغول لما قاعد يكون قمر سكانه هايو قمر ما قاعد يكون كل الشيء هذا كما قبل سقجان كحنكا كلاس يوكو خادنا قمر معاكو دواني قاعدة عليك مسؤول بلقتها حبيبها هل واحد تذكري ما مثلا كمسؤولة ما إلا جيسو أنا أصلا كل واحد كنت أنا جالسة كده ولا خبر ما okay sababta aan u hadlay waxay tahay in social media ay soo dhigay oo dhahaya qamar luul afar nin baa qabto horta waa ninkan aniga waan hayaa codkiisa waan hayaa barnaamijka laba hayga dhex geli أنا كل شيء كده أقول لك إيش كده ماذا واو أنا شاشة مين معاشا جيت نما كذا ده يا قصي ما قرأت أنا من صورة ما أنا ما قرأت يا إنه حاسس صورة سوق الطاقة ما لها يقص الطاقة أنا سافر كذا ما أنا أقول أنا مقاطيات بعد حتى إذا تلفك وهاي الصورة ده سوق أنا كل شيء كده إذا جيت إيش كده أنا إتراوينا بس أنت ما وارنت على أي كل حال أنت معناها سمينا شوي سكورت وداية هاي شوي سكورت كقول دعونا إنه داية كلبته وافهمتين كان نقد حشدن نك الشداية ولا الذي راب الساري وإسقى وويل كان المنطقتين حاليا يصوعي عاون يصوعي اوكي صوبت أستمعنا أنا وحيت هاي قبل له هداي كلها هي العقبة كده عدي أسوى ولا لا اوكي وين ما درما اوكي وكلا وير إيد قبل قرحان بعد قبتاية أنتوا نبرسكي ماذي وين ويدين دونتا قبل بعد عن عروسه حد أفريقيا كي ما ديتر قبل أنا ويكاغا سهريس أمريكان وين كبر بدنتكم يالس نكان مركا حالشكو إيها وحيتها إن الصومالية شنت الصومالية مغلا قبلها هدي إذن ديدان فاحشدان إيا دبعتدان ويقص مانيو قوربان كديدي أبتغي بانالي إمقايو وإيقايا لكن إسلام جان خالق من عبد حكيم إنو مقالد إيه قالنا معها لكن لما ولا لدي أو هندي كابا أيو أنتو بريوان شكو سمي أنا إقصو أداجي هورتا ننكا فرطا قادو قري عاون الحمد لله كو إلهي هو يدي عافمات قبطو وإسو أتاقري نايابو يقويري من السودان إمانا يا فرطا قادان قري واحد الله وحي فرعن كاهينا سوق السودان وحوير أفرني صدح إنك قبط وأنت ما خلي صدقها هذا وان دوبي وصدحنا إنك قبط مركز صدحنا نقول سنة مقال أنا هاي قبلها هرت قبلها الدريد وحن بقول شيء يا أنك سكينتنا لو جذي جنة على كياني وين بعيسنا هاي ده اسمه واي قبردر إن فاحشة لسه فرشر لقى ما يابو صفية تسمى بقولي كنتم بالغ بحي أنا صدح بقول بالغ بحين دونا ماذا وكوب شعريسو أنا ما ماذا النوع عوقك حريرتها أيها الشيء هو يلي وحي تلمرك هذا
بسم الله مركي أنتي عكرنتي كلا قاد ويدي أو يابتي أي استقالة ستي وحيتي بسم الله إلهيو دهينا دهيجا وحكا هذا الناين إلهيو دهينا دهيجا وحكا هذا الناين هذا قلوب دهان عليه يا دبكو هذا شيري هذا قلوب دهان عليه يا دبكو هذا شيري إلهو كودي بيه دق دقوها جواب هرت الدعاء هو وشقيسي إلهي وحو كان محمد محمود oo aniga gurigiisa lagu aroosay ana asaga ay bixiyay saaso asay u soo dhawaysan kalaaw gabar baa garaankeeda la yaqaanaanahay aamina jawali reer qoryool isku xaafada qamar hooyaday marka ilaaha caawa keenay maadow meela ka maraan waayay ninka social media ninka laga hadlayo waa ciyaalkayga aabahood waxa ay sheekada ma sidan baa waata soo wacday oo ugu tir abtiyo gabadhi afartii ilma direed dhayso adiga ma aha imaaw abti arrinta afar nin iyo sharmuuto iyo kiima aha ani waxaan ahay gabar ayadoo yar wadanka la keenay ka tashatay ka shaqaysatay ka guurtay hooyadeedna hayso dhibka inta la eg waxa keentay ninka reer baadiyaha markuu Mareykanka imaaday oo guurka ka diiday ayuu magaalada ii galay وأنا أبتقى وماذا اسمجينا مدها هاي أهم سؤال ودينا يا إيدو ويلكا إيدو ده وتحي ولا كابا ده مكاوي يمسوا كايريا ها وانير بعد علي أوكي ها وكاوي يا بيس وويلكا إيدو وتحي كمان في القادينية هذا كان كوهن جميع كل أيضا كاجوينيا أوكي كوسع marka aboowa aniga Soomaalida waxa uu sheegay shanta Soomaali dibka iyo rafaadka waxa ii geystay waa maadowna waxa la yiraahdaa cadowgaaga doqonka oo ku soo maraa walaalada inta ila fadhiisteen walaalay macaanay waan shaqeynaa hooyad naga haysa hool lacagta nimayna dheen nugaal weydii 6,000 oo dollar ba tigidkooda loo gooyay Cabdirasaaq ba u gooyay Axmed Nugaal oo ku haysta xawaalada Taaj مولك كراميل سفي عبر وقال هذا وحي كوغو يري دبي بو سفر aaday Cabdi Xakiim oo socotanaha iga soo casuumo aniga ayaa maamada background-keeda sheegay hooyo faris galaas loo gooyaa go'an baag hooyo hadaan abuse gareeyo ayada hadlanayso oo hal markaa igu qabo Soomaaliya Axmed Nugaal waa wiil Soomaaliyeed oo u dhashay beesha Warsangali oo waxa nin wadaada ahludiina waxa uu xawaalad ku lahaa 24ka haddana wuxuu ku leeyahay moolka Karameel وانين أهل الدين أولا يقانو ومرخاتيغا نول أيو كميد يحي عبد الناصر السجن السوداء كلا خير الله السيء أو ورسنجليا وانك ما شاء الله تبارك الله مركي ما مدى لسوء التاجري انتو اوير هو يدي قمر هدى كيما أفريقيا العقم هيسو لاير كأيجا يقبت عبد واحد لاير كا بكاس وحي لاير ايغو قبتين domestic abuse iyo elder abuse markuu imaado way dhib badan tahay okay domestic abuse iyo elder abuse waxa kugu soo dacweeyay walaalada oo maado uu number 1 kay okay Soomaaliya mid baan idin sheegayaa hooyo Saara Khayr Jecel waa taas maskaxiyan hooyo xanuunsan ma aha masaajidka Abu Bakar hooyo maxay ka qaban jirtay quraanka mantaan kan dagana quraanka dhiganaysa Sheekh Maxamed Abcalin oo ahaa quraanka dhiganaysa waa hooyo ahlu salaada wax markay yiraahdeen wiilasheedii way waalan tahay oo maskaxday ka jiran tahay waxaan idin sheegay halka inaan idin xariiqaan raba waxa u yimi nimankii social worker ee qolada mentalka waxaana la weydiiyay lacagta waxa la 20 marka laga jaro 5 maxaa soo haraya waxay tir 15 gaaladii waxay qireen inaan hooyo maskaxiyan waalay record ugu jirto laakiin iyaga ku soo yiri Maxamed Maxamuud oo hooyo sankalaad guriga u kireeyay aniga umul baan ahaa gabar yar marka la guursadaan ahaa wiilkayga yarka madaxa biyo laga helay shiishan eedka laga kansalay Maxamed Maxamuud baa shiisheedkii la soo celiyay يدعوودي محمد وفيصل صومالي كوميونتي سنكالون دوكي ملارنا قريوله اصلهن walaalanahan hooyada buraanburka laga soo daayay sankalaad iyo marisooda markay ilmaha la baabiiyay daraaga lagu baabiyay waxa la yiri hooyo single mother waxa jirto gabar takhtarada iyo wiil engineer soo saartay sida ku soo saartay hal wareysto Axmed Laari waan casuumay anigii hooyaday waa la wareysan karaa YouTube-ka ku jirna hooyaday waxay ii qortay buraanbur ilmaha qurbaha la keenay dhibka laga dhaxlo
anigana abwaanadan ahay waan ku luuqeeyay ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa haddaba inaan idin daaro barnaamijka qaybtii kale ayaan idin bilaabayaa isla hadalkan waa ka baxayaa soo gala waxaan rabaa inaan idin dhageysiyo doodiina dhex martay aniga iyo wiilka ay eedada u tahay hooyo Sahar Khayr Jecel ee walaalkeed dhalay waa wiilka yiri waxaan ka goynayaa lacagta ee finnada wada waxaan doonayaa Soomaaliyeed aniga wiilkaasi sa wada hadalay inaan idinla wadaago soo gala qaybta dambe salaamu calaykum waa live kan ka ku xiga haddeer aan soo galaya